السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow channelkayga Maya Beauty. haddaad ku cusub tahay channelkayga make sure ina i subscribe garaysid, i like garaysid videogan, iyo i comment garaysid haddaad ka heshay makeup lookan aan maanta sameeyey. sidaad ciwaanka uga arkaysid maanta waxaan sameynayaa makeup lagu talagalay amba aad ku tegi kartid xafladaha gaar ahaan maadaama ay soo socoto Independence Day-ga Djibouti. waxaan sameeyey maanta makeup at xafladda hadii magaalada lagu sameeyo xaflad inaad marsatid amba stepskan aan maanta sameeyey inaad adiguna sameysid ood ka faa'iidaystid makeup lookan ood xafladda ku tagtid. I hope inaad ka hesheen makeup lookan. also waxaan doonaya inaan idhaahdo iga follow garaya social media-gayga haddaan xagan ka maqan yahay social media-ga waan ku jiraa, Snapchat-ka waan ku jiraa, Instagram-ka xaggaas ayaa iga helaysaa. marka insha Allah haddaad su-aal haysidna xaggaasaad igu soo qori kartaa su-aalahaaga. marka I hope inaad ka heshiin makeup lookan iyo happy Independence Day Djibouti. yeah, daawasho wacan and enjoy the video insha Allah. Assalamu alaikum. imika waxaan doonayaa actually inaan serum kale isticmaalo. serumkan waxaa la dhahaa Rose Deep Hydration Oil Infused Serum. waa kaasaas uu eegyahay. yar baan yar zoom garanayaa as well sidaas si fiican u aragtiin makeupka markaan marsanayo. serumka ayaan imika marsanayaa. waa kaas. waxaan ku xigsiinayaa waxa weeyaan Fenty Skin Eye Cream. indhaha hoostiisa ayaan marsanaynaa eye cream. marka eye creamka aan jecel inaan marsado waxa weeyaan by Fenty Skin. so massage toolka wato ayaan isticmaalayaa. waxaan after marsanaya waxa weeyaan spraygan waxa weeyaan from MAC Cosmetics. waxa weeyaan Fix Plus spray laakiin kan waxa weeyaan all day hydrating spray vitamin C ka buuxo. marka we're gonna shake and I think anigu before makeup baan u isticmaalaya as a skin prep ayaan u isticmaalayaa. waad arkayaa maybe too much baan isticmaalay laakiin wuu qalali doonaa insha Allah. so in yarba yar suganaa and then makeupkeenaan bilaabi doonaa. waa kaa skincarekii oo dhan amba makeup prep hadda la yidhahdaba waan dameeyey. imika waxaan sameynayaa anigu horta waxaan jecel inaan ku bilaabo primerkayga. marka primerka aan isticmaalaya maanta waxa weeyaan NYX waxaa la dhahaa NYX. waa kaas. anigu markaste waxaan doonaa horta inaan sheego waayo comment baan akhrinayay maalin dhow ood qof iga soo qoray. waxaa laga yiri ma ku qortid markas waxaan dhahaa makeupka aan marsanayo hoosaan igu soo qori doonaa. markasta waan sameeyaa. haddaan naga yiraahdo makeupka hoosaan igu soo qori doonaa si fiican u eeg. hoosta waxaan ka wadaa waa descriptionka. meesha descriptionka uman anigu ku qori karaa wax. haddaad doonaysin inaan comment sectionka saa u aragtiin inaan ku qoro linkada ahlan wa sahlan waan sameyn doonaa haddaad doonaysin. laakiin haddaan kaa yiraahdo makeup products oo dhan maanta isticmaalayo hoosaan igu soo qorayaa waa ballan waan ii soo qoraa ma iloobo. marka insha Allah si fiican u eeg and then anyways kanaan marsanayaa. although maanta hydration badan wejka already waan marsaday saa u arkaysinba waan dalaalayaa laakiin haddana waan iskaga yara baahannahay. iska ranaysalta anigu aad baan uga helaa primerkan. waa primer aad iyo aad u fiican. hadhow tal waxaan isticmaalaa powdero badan. foundationka aan isticmaalayna waxa weeyaan foundation matte ah. marka hydration badanku aad buu fiican yahay. next waxaan isticmaalaya waa concealer. anigu markaste concealerka ayaan jeceliya inaan hoosta before foundationka inaan marsado. I feel like in badan waan sameynaya technique-kan aad iyo aad baan uga helaa. waxaan maanta isticmaalaya waxa weeyaan Too Faced ayaan isticmaalaya concealers. labadan baan isticmaalayaa kan to be honest kan indhaha hoostiisa marin doonaa. kanna waxaan marin doonaa hareeraha afka iyo meelaha u baahan. laakiin kan actually ma indhaha hoostiisa. so before kan baan isticmaali doonaa before foundation. marka indhaha hoostiisa afka meelaha tashka aan ku leeyahay ayaan wala marin doonaa imika. so arkaysiinba tashashka oo dhan ayaan qarinayaa. xaggan oo dhan
ka madow. I hope in it right shade warm sand. Warm sand baa kan la dhahaa. And then inta hoostiisa in yar umaan marinayaa soo arkaysiinba. And then waa kaas soo arkaysiinba. Imika waxaan sameyn doonaa blendingii baan sameynayaa. Marka waan blend garanayaa intan oo dhan. waxaan soo qaadanayaa Morphe M173 brush. Marka waan ku blend garanayaa soo arkaysiinba. ayar haddaad doonaysid at this stage na haddaa aad severe u tahay dry waa spray garan kartaa wejigaaga haddana. laakiin anigu waan ka helaa aad concealerkan marka I don't think inaan u baahan yahay inaan spray garayo wejigayga. So sidaas unbaa sameynaysaa. concealerkii unbaa blending baan markaa sameynanaa soo arkaysiinba. So waan dameyn doonaa imika blendinga ayaan soo dameyn doonaa waayo waxay ku qaataa in badan inaan blend garayo. Markaan dameeyo ayaan igu soo noqon doonaa insha Allah. Okay, I know waxaan egahay crazy laakiin stepkan aad iyo aad baan u jeclay inaan sameeyo. Marka imika ayaan marsanayaa foundationka aan aad iyo aad u jecelyahay waxa weeyaan NARS waxaa la dhahaa NARS Soft Matte Complete Foundation. saasuu eegyahay. aniguna shadeka aan marsado waxa weeyaan Macao baan marsadaa. xagga baasheer baan xiranayaa. And then so in yar baan ku yaro shubayaa soo arkaysiinba 3 dhibic weeyaan mise 4 baan ku shubay. waxaan jeclahay inaan sidaa ugu spread gareeyo soo arkaysiinba. saasaan jeclahay inaan ugu blend gareeyo baashan yar aan haysto. And then saas ayaan ugu marinayaa wejiga. I love coverage ku isiiyo. marka foreheadkana saasaan u marinayaa. foundation badan maan isticmaalin. imika waxaan isticmaalayaa concealerkii lightka kan shadekna waxaa la dhahaa Cookie. kan ayaan indhaha hoostiisa marinayaa chinka iyo foreheadka. contourka maanta isticmaalaya waxa weeyaan from Huda Beauty contour and bronzing cream weeyaan. I absolutely love waan ka helaa bronzerkan oo amba contourkan hadaba. okay, ila daawada xaggan contour gareeyo. brushkan yar baan jecelahay inaan u isticmaalo contourkan contour garanayo. I love this brush. so okay, imika waxaan sameyn doonaa waan soo wala blend garanayaa. contourka aan sameeyey iyo highlightka oo dhan ayaan soo blend garanayaa. ana waan igu soo noqon doonaa insha Allah. waa kaas waan dhameeyey contourkii iyo concealerkii soo arkaysiinba. waan blend gareeyey as much as aan karayo. waxaan sameyn doonaa bronzerkayga ayaan marsanayaa. anigu stepkan aad baan uga helaa. I love bronzerka aan isticmaalin waxa weeyaan Morphe waxaa la dhahaa Glamour bronzer. shadekan waa Megastar. haddaa igula xiran tihiin channelkayga waa og tahay inaan aad uga helo bronzerkan. marka xaggii aan contour garanay baan dul marinaynaa soo arkaysiinba. brushka aan isticmaalin waxa weeyaan Morphe E4 brush. absolutely love bronzer especially bronzerkan aad baan uga helaa bronzerkan. blushkayga ayaan marsanaya imika. blushkayga waxa weeyaan from Fenty Beauty. saas uu yaryahay soo arkaysiinba. waxaa la dhahaa cream blush. aniguna shadeka aan jeclay waxa weeyaan Rose Latte in number 10. Rose Latte baa la dhahaa.
labada powder aan iminka marsanayo powder badan baan doonaa inaan marsado soo arkaysiinba kuleel yar baa jira marka labadaan isticmaalay waxa weyn Fenty Beauty powder marka banana ayaa indhaha hoostiisa marinaya powderkan and then waxaan isticmaalay waxa weyn honey saan yiraahdaa markasta linkada oo dan hoos aan igu soo qori doonaa insha Allah xagaas ka wada arki kartiin xagan ka iibsado ولذات سؤال مركا اللي يسوي ديو من كذا already بقى اسكت عبسنا ساكا دونسي أدو بمكوا يبسن كرتا مركا إن هني بان أفكا مرنايا سوي لداودا إن شاء الله. Okay, مادام أن powder مرسني وحاسودن before أن powder كمسحه أن spray كمريو وحندون إنه كوير بلاوة بالآي شارو جيجا and آي شارو أمانت استعمالي وحويا and لبا آي شارو so Anastasia Beverly Hills أيان استعمالي وحويا in collaboration with Jackie Aina مركا one color أمان كاستعماليا و one shade أمان كاستعماليا shade كان كاستعماليا وحويا shade كاو أبوني جاس and credit بلدها marka kaas ayaan ku bilaabayaa indhaha marka cut crease-ka ayaan gelinayaa aan ku blend garanayaa marka insha Allah inta ila daawada brush-ka aan isticmaalayo waxa weeye brush yar oo la yiraahdo 441 by Morphe. Okay, shade marka waxaan u isticmaalayaa as a transition shade marka palette-ka aan ku xisiyo waxa weeyaan NARS palette-kan NARS Cosmetics and waxaan isticmaalay waxa weeyaan bunni isaguna oo glitter leh marka kan ayaan marka marinayaa isha dhexda حقا waxaan isticmaalayaa waxa weeyaan Morphe M124 brush waxaan sameyn doonaa imika lashes كيان صوغ شنيا mascara قاعد نستعمله waxa weeyaan NARS Climax Extreme mascara absolutely mascara gan aad baan u jecel yahay eyebrows ayaan sameyn doonaa mascara lashes baan soo gashanayaa indhaha hoostiisana waxaan marsan doonaa eyeliner and waan igu soo noqon doonaa insha Allah waan igu soo noqday sawirkiisiinba eyebrowskii xirabihii waan dameeyay lasheski indhihi everything waa complete waxay haroon inaan indhaha hoosta mariyo eyeliner indhaha qalinka indhaha iyo eyeshadowga aan indhaha marinay as a transition baan hoosta marinaynaa marka soo arkaysiinba powderkii wuxuu u baahan yahay imika spray marka waxaan sameyn doonaa wejiga ayaan spray garanayaa imika okay sprayga aan isticmaalay waxa weeyaan Urban Decay All Nighter Setting Spray baan isticmaalayaa ruuxayaa waxaan doonayaa wejiga oo dhan inaan ku buufiyo indhaha waan qarinayaa laakiin waa kaas imika waxaan sameyn doonaa in yar markuu yar qalalo highlighterkeena ayaan marsanayaa highlighterka aan marsanayn waxa weeyaan by Fenty Beauty again aan horta Fenty Beauty aad baan u jecel yahay marka waxaa la dhahaa Kilowatt highlighter Mean Honey iyo Hustler Baby labadaba waan isku daraa anigu waan isku mix gareeyaa and then highlighter baan ka dhigtaa marka imika waan marsan karaa actually waa aad maaha engeg laakiin waa perfect waayo markaas wuu qabsanayaa highlighterku
imika waxaa noo haray inaan furuuraha sameyno. Furuuraha waxaa maanta marsananaa waxaa weeyaan lip liner by KKW Beauty oo la dhaho 90s chick. waxaa weeyaan bunigan waa buni aad u yaro qurux badan. waan qashirayaa bal horta. I think I'm sure ogtiin laakiin lip linerku markasta wuxuu kugu soo baxayaa si fiican markaad sharpen garaysid qashirtid. So waan line garanaya imika lipskayga. Okay, and lipstick amba waa lip gloss baan u malinayaa kani. Again waa KKW Beauty laakiin waxaa la dhahaa kan Classic Kim iyo waxa weeyaan lip gloss. si fiican mu arkayo laakiin waa lip gloss. runtii waan aad baan u doonay inaan indhaha liner akhtara inaan marsado laakiin I feel like indhaha saasaan doonay inaan ku daayo. waxaan sameyn doonaa bal bunigii u horeysay aan isticmaalnay eyeshadowgan bunigan credit kan ayaan indhaha xagga hoosta ayaan yar ku blend garanaa. brush yar baan soo qaadanayaa. okay brush aad iyo aad u yar weeyaan. and then indhaha hoostiisa mad gelinayno. hoosta waan soo marmarinaa. Okay guys, and waa kaas waan dhameynay makeup lookan. I hope inaad ka heshaan makeup lookan amba aad barateen sida loo sameeyaa makeup lookan lagu tegi karo xafladaha aroosyada. laakiin maanta gaar ahaan waxa weeyaan for xafladaha maadaama xaflado badan soo socdaan. Independence Day, Djibouti Independence Day baa soo socota, Somalia Independence Day baa soo socda. marka inuu xafladaha ku tegi kartiin insha Allah haddaad doonaysiin inaan mur sameeyo more makeup looks oo xafladaha lagu tegi karo. marka insha Allah xaga comment igu soo qora waan ii sameyn doonaa insha Allah haddaad ka heshaan kan. maanta aad baan uga helay makeupkayga maasha Allah aad baan uga helay. I think palettekan waa palette yaro achieva NARS and especially buniga si fiican baan u arkayaa glitterkan buniga qurux badan yahay maasha Allah. marka productyaasha oo dhan maanta isticmaalana xagga hoosta ayaan linkyada nagu soo qori doonaa isla markasta aan sameeyo. hadda waxaan ka maqan yahayna maalmaha waan ka yara maqanaa waayo aad buu kuleyl u ahaa ingiriisku. marka waan kala waayay inaan makeup sameeyo. actually Instagramkan u sameynay a few makeup looks. iga iloobina subscribe-ka, like iyo comment-ka. inshallah wayno makeup videoga dambe ama videoga dambe aan sameeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.